بيئة تأثير كي لا رواينا ندين شيء مثال بان تسيني يا صوماليا كدعي ويل يرو طليانية ويل كطليانية أبي هو يكلي المكقبة دبلوماسي نوي أبيه ومقدشوي وحافظ بوندروي ما شيء كبوجا أنا ويل كي يعني هرتي ده وش كي أرنتي ويل كي waxaa dhacday markii odagu shaqada ka soo rawaxo hooyaduna ay ka soo rawaxdo waa laba qof oo de family ah wiilkan banaanka u bixiyaan cidana ay wiilkaaba u joogaba bas wiilkii xaga waadaya marka ilmo Soomaaliya oo garangar ku ciyaaraya meesha jidka ah ayuu la ciyaaraa maalin walba ilaa ilmo kale ma haysteen ilmo garangarta la ciyaara garangarta la eriyayo kale ilmo ku daaway xoogaa kuwa kale to waaweyn ku soo biiray way la ciyaareen anugii intii aabiyo hooyadii ay hurdaayeen anugii waxay geeyeen dugsi quraan ay geeyeen ilmahan raacaya dugsi quraan la soo dhiganaya ambuulada la cunayo wax ka soo cunaya markii ilma laga ducaynayo wax oo dhan markaas ay dhan kitaabka ha taabanin kala gaalata kitaabka taabanin gaalata quraanka ha taabanaya anugii yarka biswa iska yar uu iska aamusay uma sheegay waxaas ay ku dhigayaan hada ilmuhu ku dhigayaan uma sheegay abihi hooyadii ogow adigana saas oo kale tan loo dhaqmaya ogaada maalinka dambe iyagoo ciyaaraya yeedhan hana taaban haranaati hana taabanin haran ma taqaanin ma yaqaanin feere haran waxa Soomaaligu yiraahdaan eyga nijaaso weeye haduu ku taabto marka haranku waa eyga wixii la iska eriyo laga fogeeyo haran la yiraahdaa si ay u fahmaan madoona ciyalkee waxay ku yiraahdeen haran baati hana taabanin soo wadsa haran maxuu Talyaaniga ku yiri doob haran marka la yiri haran waxa weeye eyga aad la ciyaartaa marka najaasa kugu taala najaasadana ha nagu taaban najaasadaada adiguna anugii ilmahan raba inuu la ciyaaro dhagaxday dhigayna la dhigdhigo raba waxaan dhahnaa taabanin haranaatee harankiina waa loo sheego waa eygan taabashadiisa la ciyaarayso guriga inta ku soo noolaalka wuxuu yiri eyga ku bilaabo ul waa yaabeen odagii aabay waxa leeyahay eyga maxaa u dilaysaa waa fiican yahay waa faratelahaaga waaye faratela way brotherka yirasoma waa faratelahaaga maxaa u dilaysaa wuxuu haran weeyo faratela ma non ay fratello yiri way tarabba haran way yiri way wadigeen eyga tarabba haran way dheen tarabba way aad buu haran u yahay wasaq u yahay waa yaabeen eygi ama guriga ha laga saaro iyo amaanaga ha laga saaro nag waxay ku qasabtay ninkii inuu eygi markii dambe cid kale oo Talyaani iska siiyo hay wiilkii yarka ilma ka qabay wiilkii wuxuu yiri eyga ama aniga ama eyga ayagoo yaaban meesha looga yimid ma oga barka waa seexdaan maalin kasta iyagu inay banaanka niman u joogaan yaryada ku deeyay ma oga maalinkii dambe yiraahdeen radiga buriiqa baataydeed buriiqa maxaa la yiraahdaa uu yiri waxay dhaheen buriiqa waxa la yiraahdaa ilmaha la gudin baa la yiraahdaa adiga waa naga duwanta wasaqaata adiga ilmihiisa waa ilmo yaryare sarwaalka yar inta iska wada fureen tusiyeen in la gudan yihiin asagana aan gudnayn waa kaas alimarta ina qashin tahay waa arinta hadda aan sheegayo kala to gabdhaha la leeyahay waxay qarinaysaa oo kala soo markaysid hadaba waxay qarinaysaa saan ogow arinta hadaba waa the same yani procedure weeyaan oo lagu la dhaqmayo wuxuu yiri waa inaan ka takhaluso arinta sayada wuxuu tagay canugii ilmihii waxay u geeyeen istaalkii Martini la dhijiray geeyeen ilmihii say canugii u wadeen waa in la soo gudaa anigan waa yaabeen abiyo hooyadii kaxbay ku noqdeen canugu waa kaxayeen waa la soo guday halka canugu ay qabaan Talyaanigu maxay sameeyeen waa imtixaanan yihiin waxa la yiri baqtiga cunta maalinkii dambe doofaarka cunta la yiri doofaarka cunta oo doofaarku maxaa dhibay doofaarka sida eygo kale too yahay tarabbo najis yahay asagana gurigii ku noqday wax alla wixii gasac u yaalay iyo wax alla wixii la doofar Soomaali lagu maqalay gasac lagu leeyimid meeshii asaga ay sheekeynay gasacyadii oo dhan oo Talyaaniga ahaa
oo doofaarka ay boorka kula yimaadeen oo dhan kulli intuu arushu qubay wiilkiirka khamrigiina intuu qaatay oo dhaladii dhulka la dhacay markaasuu labadaba najis waay waxay dheen ilmahan waxa wax bar marka waynan ogaanaa si kasta inta yeelan u sheegi diiday saasoo kale taa marka doofaarka looga tufay anugaas gaalka ah ilmahanagana doofaarka leeyahay maxaa dhacay waa cunta cun maxaa ka cun is good maniela maniela talyaani soo ma maniela waa cuntada ugu fiican weeye cun sandwichkan manielada banini beye banini banini maniela marka cuna la leeyahay ilmaha anaga saasa loogu daldala anagana sandwichka iyo maanta waxay ku jiraan oo kale tii kulligood loogu daldala because hadoo yira mar rabo maanta dawdiido boqol ku kacayda waxa lagu leeyahay hel naga tagna lama ciyaari kartidi ilaa iyaga superiority kale yihiin ilmihii yarka ahaa waa fahamta Soomaa hooyadu ma oga aabuhuna ma oga marka sida canugaas yarka Talyaaniga aanay aabihi hooyadii u ogeyn aanan ilmahanaga u ogeyn waxa la cunsiinay sida loola hadlay sida loola dhaqmayaa aanan ogeyn okay anugii waa la soo guday doofaarkii waa diiday khamrigii waa jajabiyay maalinkii dambeeto ilmihii markay dugsigii tagaan waxa la quraanka taabanin maxaa dhacay gaalata la yiri maxaa noqonaya muslim noqolayno muslim soo noqda waay la ilaha illa allah muhammad rasulullah de anugu la ilaha illa muhammad rasulullah yiri yani ilmihii macallin ay u noqdeen anugii sheekh bay u noqdeen dugsigan uu tagayo quraanka waqrin wuxuu yiri ayadana aabay hooyaday ogeyn ma quraanka waxaan soo dhigtay ilaa juz amman soo bartay yiri soo xafiday yiri aabay hooyadayna xabad kama ogeyn buu yiri maalinkii dambe waxay uu yiri hey maqla marraba waxaan aad karsanaysan adinka cuntadayda waa ii gaar way aniga muslimaan aanu yarka adoogay hooyadii waa qaraami gaareen waa soo guureen magaalada waxay soo degeen France ayay soo degeen aniga meesha ugu sheekeynay wiilku waa France way markay soo degeen wiilkii waxay islaayeen waa idin soo noqon doona ma soo noqon masaajidkiisu ku xirmay dharkiisii uu qaatay ilmihii Soomaalida ciidan aan raaci maayo gabdhihii meesha ka shaqeynayay gabar kamid ah Soomaaliya af Soomaaliga wuxuu yaqaan sida anagu uga hadlayno kale habartay aabuna Talyaaniga ay Soomaaliga ma yaqaaniin markay iskala weynayeen markii hore to orgolyo waxa weeye asaga af Soomaaliga wuxuu bartay sidii ilmihii u baahlayeen ugu hadlay wuxuu yiri gabadhan Soomaalidan guursanaa gabadhu waa isku soo dhaceen bas waa guursadeen habartii adoogu sheego wuxuu yiri ogaada aniga waxaan guursaday gabar muslima oo Soomaali aan guursaday waxa la dayrad naga tahay okay buu yiri bane adinka idinta Allah buu yiri waxa dartan ugu xukuma laakiin aniga gabadhan guursanay iyada muslima mar rabo ilmahayga inay meel muslimiin salka dhigaan ma doonayo meel muslimiin ilmahayga salka dhigaan ma doonayo ogaada taas wiilkii saasuu gabadhii ku guursaday aabii hooyada waxaan gabadhan Soomaalida ma arki karno markay muddo joogeen oo ilmo u dhasheen ay waxay ilmaha aan aragno no buu yiri naagteena la hadashaan oo raali ka dhigtaan moogi ilmaha arki maydaan marka gaalad ilmaha way gaalaysiinaysa aniga arkay indhaygan ku arkay waxaad ogaataan marka canuga procedure la soo marsiiyay meesha uu ku dambeeyay in la ku dambaysiinay gabar iyo wiilba in sidaas oo kale la ku dambaysiinay